أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر. waxaa la yidhi wiilwaal baa maalin maalmaha ka mida u yeeray dahabaduula haweenaydii siduu ku guursaday aynu barnaamijkii toddobaadkii hore ku soo qaadnay ee uu caqligeeda badan ugu xishay. wuxuu ku yidhi muddo ayaan maqnaanayaa, waxaan ku tashanahay sodcaal dheer. kolkii haddaba aan soo noqdo aan kuugu imaado adiga oo haysta wiil aad dhashay oo aniga ii eg iyo genyadayda oo faraskayga u eg iyaduna dhashay oo haysata. haddii kale luquntu kuguma ooli doonto. waa xujo iyo yaab. haweenay uu ninkeedii sodcaal ku maqan yahay sidee bay ku uuraysanoo ay wiilal u umuli? way umuli kartaayoo gogoldhaafba waa lagu keenaaye sidee buu wiilka ay dhashaa uga ekaan karaa ninkeedii muddada ka maqnaa? dhanka kale faraskiisii haddii loo xakameeyey oo inta wejiga shaa loogu guray loo shaqlay isaguna uu ku sodcaalay sidee bay ku suuroobi kartaa genyadii heblo ahayd ee uu reerka kaga tegay intay rinto in neef faraskaa u eg laga soo jiido? xujooyinka garaadka sidii loo furi lahaa iyo wixii laga yeeli lahaa in lagu dhaqaaqa ha joogtee in dooda laga celiyaa cidna uma bannaanayn. aragdiisana allaha ka dhigee ruuxu naftiisa rajo ka qabaa inuu maya ku yidhaahdo kumuu dhiiran karin. dahabaduula walwal baa ku dhammaaday. sidii ay xujadaa ku furdaamin lahayd ayay habeenna u soo jeeday. waxay talooyin dhowra rogrogto oo kala doorataba ugu dambaystii ayay inta mid ku xasishay istiri alla ilaahay waad haysaa oo inta isu bogtay dhoolaha ka qosashay. baryahaas halkii wiilwaal lagu malaynayay ayay tooyatay. reerkii geediga ahaa iyo kii nagaaba way weydiisay. ninkii socotada ahaa ee ay aragtayba way haybisay. waxaa loogu warramay reer hebel buu habeen saddexaad la hoyday. mar kale waxaa loo sheegay nin hebel baa habeenkii xigay degme heble ugu loogaayey. mar kalena waxaa lagu yidhi maalin hebla ayaa fagaarihii weynaa ee meel hebla loogu dabaaldegi doonaa. 2 cisho kadib reeraha uu ku hoyan doona markay hubsatay ayay waaberigii mariimatay dharkeeda kii ugu bilicda roonaa waddadana cagta saartay iyada oo ku joogta geeyadii uu u tilmaami jiray oo beedaran. cilcilowga fiidkii goor ay tahayoo aan habeen iyo dharaar loo kala garan ayay si dhuumasho u eg waxay ku soo gashay galabtadii hore reerihii oo wiilwaal caraabada ku yimid. waxay gees ula baxday duqii ugu weynaa odayadii sooriya qalqaalinta garaadka ku howlanaa. haddiiba intay isu sheegtay ayay ku tiri nin yahow heble hebel ayaan ahay, ooridii garaadka ayaan ahay, qof arrin culusi wareerisay baan ahay, dahabaduula oo xujaysan baan ahay. waxaan kaa duraamanayaa qoolka qoorta iiga maran inaad ila furfurtid. ruuxa dumarka ahi waxa ay u sheegi isaga oo ka yaaban ayuu odaygiina yidhi maxaa ku helay? qoolka kugu maranse muxuu yahay? markaas bay u sheegtay xujada furitaankeeda laga sugaayo ee iyada iyo ninkeeda dhex martay. afkaraqaad baa duqi ka soo haray. meel uu wax ka bilaabo ayuu aqoon waayey. wuxuu aamusnaadaba markii dambe ayuu ku yidhi maandhay si aan wax kuula farsameeyo iyo irid laga baxo midna anigu garan maayo, igamana sugtid. markaas bay tidhi irid aan ka baxo in aad itustid kuguma imaan, kaalmo un baan kaa doonaya, taladaydu way i dhooban tahay. hadhow fiidkii haweenaydii uu caawa la aqalgeli lahaa halkii aad uga geyn lahaydeen aniga ii geeya si aan ula hoydo. waxaan ku mala weynahay inaan qaadi doono oo astaamihii uurka aanada u ahaa ayaan isku ogahay. aniga taa ha la ii fuliyo. midda kale genyadu way beedaran tahay oo soo celin maysee iyadana isla caawa faraska garaadka ha loo hayo. hawraarsan iyo guddoon ayuu odagiina yidhi isaga oo la ashqaraarsan sida ay taladu u habboon tahay haweenna u quurila dahabo oo kale inay ku jiri karto. suuryadii kolkay dhammaatay dabina loo sheekeeyey ayaa waxaa la soo gaaray qoftii la bari lahayd goortii wiilwaal loo keeni lahaa. kolkaas baa waxaa halhaleel u soo booday oo hadalkii boobay fiidkii dahabaduule odaygii ay wax isku ogaayeen. wuxuu yidhi bilic hadday dumar lahaayeen cawo kale yeelkeeda garaadow caawa waad haysaa, kashaadu sidaa ha ku qabowdo. khayrayn buu isna la muusooday. habeenkaana dhaxantii gelin hore iyo gabadanadii aroornimoba waxaa gabaad uga noqotay dahabo oo inta loo soo hadoodilay aroos cusub looga soo dhigay.
si haddaba wada joogga habeenkaas aanu garaadku berri ka maalin ugu dafirin oo haddii ilma ku beermaan aanu ugu malayn fal gogol dhaaf keenay maxay talow yeeshaa durba xeel bay heshay judhii horeba markii uu gacantogaaleeyey ayay ka durugtay way ka sii jeensatay intay u jir xumaysay bay haasaawihiina ka xidhatay markii uu doocdoociyey oo hadba uu dhinac ka maray oo waa ku sidayso inaan garaadkii ahay ma ogid uu dhowr jeer ugu celceliyey ayay tidhi fargashiga aad qabto iska soo bixi oo isii haddii kale dabadeedna isaga oo aan is ogeyn ayuu inta degdeg isaga soo saaray ku hubsaday fardhaxadeeda faryarada iyo faadumada u dhaxaysa isla markaa iyadu ay garaadka gubasha la jiifto odaygiibaa sidii lagu ballamay wuxuu meel isugu geeyey faraskii iyo geeyadii ay iyagana xujadu ka aroosnayd intii aan waagii dhab u beryin iyada oo weli uu cirku isku jiro ayay dahabana gubashii garaadka u soo bannaysay oo intay geeyadii kooraysatay u jarmaaday halkii ay reerkeedii ku ogeyd kabil hadduu maqnaa ayuu galabtii dambe isaga oo faraskiisii weyrax ku jooga soo dhigtay kagana degay daahiyo weynihii dahabo ardaagiisa sheedda aqalka ayuu midhacsaday mase waxaa ku mayracanaya geeyadii iyo darmaan ay dhashay oo aan laga aqoon faraska uu hadda meesha kaga degay wuu yaabay waxaase uga yaab badnaa markii ay dahabo aqalka ka soo baxday iyada oo naaska u dhigaysa wiil si wacan u kobcayoo aan isaga laga aqoon markaas buu ismadax maray indhihii baa haddiiba guduutay cadha iyo ceeb wada socdaa ku kulmay wuxuu u maleeyey dahaba inay simbireeraxatayoo intuu maqnaa ay magaciisa meel uga dhacday isaga oo aan waxba weydiin ayuu seeftiisii afka badnayd galka kala soo baxay oo xaggeedii u soo degdegay wuxuu maagan yahay iyada iyo wiilkaba inay caawa waraabayaashu ka hamuun beelaan markaas buu isku daray isaga oo seeftii qaabsaday iyo su'aal gaaban oo ahayd ilmaha aad sideeto xaggee baad ka keentay intay dhabarka ka soo wareejisay ayay ugu jawaabtay horta waa wiil waana ina garaad xirsi foolkiisa ayay ka garatay inuusan rumaysan dabadeedna si aanay seeftu luqunteeda ugu dhicin ayay haddiiba waxay farteeda ka soo saartay fargashigii ay ka qaadan jirtay hortiisa intay ku tuurtay ayay tidhi garaadow kaatunkaa ma aqoonaysaa isna markii uu eegayba wuu aqooday sidii ay sheekadu u dhacday ayuu dib u xusuustay halkii ayuu ku qaboobay oo habeenkiina intuu wan weyn ku allabariyey wiilkii ugu waqlalay